dugsi la'aantan docdanigu ban deeqay hooyada dembi kumaale deeqay hooyada dembi kumaalehe talilaliladha dadka aabahaba igu dar والله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله إلهي مهدي وانا في عنا حيه دق إمك واد حلوانك أساسات كل حلوان ليست والله أدوك ديك من حلوان إثنية وأن أدوك وأها ساسي نقولس إمك أنت كسر بتنينك والحدين دبر هذا وقويا داي ما حد وقويا دينك horta dee waxaan ugu yeeray inaan macnaheedu horta filin u baahan waxaan way filinkan wacdiyo waana la yiraahdaa bishan Ramadaan 3 Ramadaan baa loogu talagalay sidaad boogsoon tahay intaas uu soconayay kulli waxna uu dadka farayay waxna waa ka reebiyay way xaq diin ahaan iyo xaq dhaqan ahaanba musalsaladii dee la daawan jiray oo adigu dee sidii aan ugu talagalay taxana ah oo xalqadiba halkeeda ka sii raacayso ayuun buu ahaa dadkii la socday iyo dee intii la ku xidhnaydna dee way garanaysaa kulli waa wada daawatay marka filimka noocaas buu ahaa wuxuu lahaa film wacyigelin buu ahaa wacyigelin oo dadka dee wax tusaya adigu waxaad ka matalaysay aabe nin aabbaho xanaaqsan intii lagala tagay markaas nin aanu garanayn kala maqan yahay ha bal filimka saad adigu guud ahaan shakhsiyan u arkaysay wallahi dee waxaan u arkay film wanaagsan dadka wax taraya wax tarayo haddana wax taray ma baan aragnay aniga waqtiga iska kamaan loo iska diin lahay marka anigu dee kulay meel baan kaga jiray dad badan oo asxaab aan nahayna dad ku jireen oo actor badan marka qof waliba meel buu qaabilsanaa mii ila magaala la waday hawl badan baa gashay waqti badan baa galay chance badan baa galay director badan baa galay agaasimo Maxamed Caabiyo marna agaasimahayaga marna directorkeega waxa Universal TV guud ahaanba madaxiyo mujaba inamadii duubay wixiiba oo iskaashaday aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa oo filimku dee aan laantood socdeen iyo inteedii matalisida Cabdiqani isku filan Hibaaq Ikraan Cabdiqani yare Shacab yare Muna dad fara badan aniga meelaha aadka xitaa dadka igu sii haray macnaheedu filimka dibadaba ma garanaysa dad baa jiray ku soo biirbiiriyay oo xitaa qaarde ka galeen face ka galeen inantii walaashii matalayso kale runtii sidee wuxuu jishay macnaheedu inay jirto oo waxaana ay hayso duruuftan ay markaa ka cabanaysay ay matalaysi inay markaa iyada hayso oo kale ayad moodisi isku filan oo kale markay tageen miiga ninuu tagayo walaalkii mataliyo geel la iska jooga mii jooga oo waranaya inantaan la soo tagay magaxan kale magaaladii oo waxaan doonayaa geel ka bixiso markaasuu matanaad miigi ka keentay magaalada wallahi waan la xasiisteen waa actor waa macnaheedu waa dadka aan hadana filimka didusha aan kaga soo darnay waxa kamid ahayd inantii hiba Ikraan oo ahayd madaxiisada Naciima iyo qaybihii miiga oo dhan ciyaar hawlihii badnaa oo maray marka waxaan u maleeyaa qof waliba meeshiisii ayuu kaga aadan kaga soo baxay filimkan ma la oran karaa heesaad qaaday oo deeqay hooyada dambi kuma lehe dadka aabahaaba igu daran inuu filimkaasi matay wallahi billahi de kulli waa iska kala xig baa laakiin marka la soo eego ismataliya heesa bal hooyada dambi kuma lehe dadka aabahaaba igu daran de oo islaantu dawatan inta la doonaysay inaan koox hibaaq deel rabti ana waan iga diidan marka waa odaygii ugu darnaa bal heesta ereyadeedii bal iyar hada noo qad dugsi la'aantan docdanigu ban deeqay hooyada dembi kumaale deeqay hooyada dembi kumaale talilaliladha dadka aabahaba igu dar marka waa isku seenaysaa xildhibaan qaybtii kugu xiisaha badnayd ee filimku shakhsiyan maxay ahayd wallahi xiisuhu waa fara badnaa oo dee wuxuu waa fara badan bay ahaayeen waxyaabaha igu xiisaha badnaa waxaa kamid ahaa halka gabadhan ku sheegayo kale walaashii matalaysay isku filan iyo Ikraan oo iyaguna markay miyiga tageen meel cidla dab iskaga shidanayo dab isku ooganayo iska kilib yar ku dhex jiro iska sheekeysanayo heesaska qaadqaaday macnaheedu qaybihii miyiga oo dhan
hibaaqooyana bartii hooyada meesheedii dhigtay oo aad islaan caadi ba moodaysiyo naxariistii hooyanimadii marka way farabadnaan waana filin taxanaha runtii xalqad DBC kusoo dhawo bal oo waxaad mar ugu horreyn uga warbixisaa bal filinka sida aad ugu weerartid ka hibaaqahan walaalaad ba mahadsan tahay waana dhawahay maxay ahaydey filinka horta waxaan u arkaa wax fiican waan bulshada kusoo kordhinay maxay bisha Ramadaan aan maxay ahaydey aad uga farxinay taageerayaasheeda ayaan warka filimka waxaad adigu kuma tirisay gabadh hooyo ah oo xanaaqsan oo mar kasta ma garanaysaa mar aad inta raadinaysid mar aad gabadh dumar ishiifaysaan mar aad koofeerka sumaagaysid bal markaaga caadigaa tahay hibaaqahaan saasaad u carabantay والله ولا ما عرض اللي يقوم شيء لكن هو مهمة واحد مثليسو إن هذا موجسة مهمة هذا كلام حي هذا هو إن أنت دي ويدي إن أنت ما أنت كسان هو يقولي نقانين هذا لما كان هو ينقض سيدي أنو رقم لها نقبض كي هدين ويقول ولا لها أما نقول بعطان لها مو بنسميه. واتاي كواحد يهيلنا سينات هذا. إن أنت مرة ونهيلنا مرة ورادين يبغى كذا بمالله. واتاي. كم مرة ورادين مرة دمان هلنا يدي إنك هذا محي هذي. deynay sidii nolol fiican ugu noolaan lahaayeen fuligeed qabanay hooyooyinka dhibaatooyinkan ku dhacaan oo kale maxaad iyaga ku waanaysaa والله horta waxaan leeyahay anigu bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maxay ahayd inantu haday qaangaadho inan qaangaadho noqoto waa guur joog maxay ahayd aan bani faqiiraha ha jeclaato ama mid miyiga noloshu waa miyiga magaalo iyo faqiir iyo taajir marka maxay ahayd qofkii ay calmato aba taajir noqdo amba faqiir ha noqdo amba ha noqdo reer miyi amba ha noqdo reer magaal kii ay calmato baa faacayade irsaaqadan Ilaahay baa haya wixii cunayeen wixii cabiyeen si wada noolaanayeen halkii ku noolaanayeen laakiin muhiimadu waxa weeye qofkii inantaadu xalaalka ugu keento inaad aadanu diid ayadu ku qanacsantahay markii hore waxaad ahayd hibaaq wax lagu naanaysan jiray hibaaq qoto oo filimkii qoto aad ugu garanaysaa lagu magac daray iminka ka waradii lagu magac daro wacdiyo waana wardamku wacdiyo waana la maray laakiin dadku waxay ku yiraahdeen odayaal weyn bay ku yiraahdeen hooyo hibaaq mar suuqa dhexdiisa marka ma leeyahay hooyo hibaaq mid ay soo qoro hooyo hibaaq marka dadku hooyo hibaaq bay igu yeeraan marka wixii bulshadu feedback ay ka soo celiyaan magaca qoto hadii iga bedelayaan yageen deynina ciidka maxaa dadka yahay ciidda waxaan leeyahay ummadda horta intii caafimaad ku ciiday Ilaahay caafimaad ku gaarsiiyay iyo nolol maxay ahayd waxaan leeyahay inoo siyaadiyo wina siiyay inoo siyaadiyo intii maxay ahayd de xanuunsanaysa sarar saarnay Ilaahay caafimaad saracna ha siintii dhimatayna aw naxariisto ugu dambeyntii hibaaqay bal mahad celinta iyo iyad mahad celinaysaa iyad salaamaysaa horta marka hoowaad waxaan mahad celinayaa Ilaahay ay mahad u sugnaatay inagu sameeyay halkan isugu nimaadno inaynu waxa quruxda badan soo saarno mar labaad waxaan mahad celinayaa taageerayaashayada waana la'aantood waxba qabsanin ama aanan dhiiranin oo dhiiri geliyay oo waxaanu sameeyay noogu hambaliyay oo nooga mahad celiyay maxay ahaydey feedback fiican ay waxaan u soo gudbinay iyaguna nooga soo celiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa agaasimaha qaaliga Maxamed Caabi walaalkay aan jeclahay walaalkayga weyn oo in badan soo garab qabtay in badan inaan maxay ahaydey aan bulshada dhexdooda aan bulshada ka dhex muuqdaan bal iga bartana maxay ahaydey sababteeda laha filimkan maanta aan duubaynana directorkayga haayo maxay ahaydey inaan filimkan aan qabano inaan isku nimaadnaba isagu Ilaahay ka soo sabab ahaa aad baan isagana ugu mahad celinayaa iyo teamkayga ikraam baan salaamayaa odaygayga maxay ahayd inaan habarka waayay adqan isku filan adigu dhammaan ummadda muslimka waxaan salaamayaa kale walaalkay Amiin walaalkay Xamsi oo ahaa maxay ahayd kameramanadii marna baan naga caajiseen waxa quruxda badan aad arkaysan idin soo gudbinay sidoo kale injineerkiisaguna noo fadhiyay maax adigoo maaxa oo maxay ahayd wax kasta markuu soo tafatiro idin soo gudbinay soo qurxiyo marka TV-ga Universalna dhamaantood shaqaalahooda si guud iyo si gaar ahaaneed baad mubaarak banu leeyahay aad baad mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمن دي سلام من أصحابتي قالقة وليبا أصحابتي استعماشي يوتيوبك وحن لنا يوتيوب channel كا سومالي شو كسو دوادا لايك شير كومنت سبسكرايب